السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن أو وناكسن صاحبيال عوض برنامجك وحن كسو قادن دونا قدر كيو أو لغو حري مقالة أديس أبابا ورئيسي أيان إنكاga هينا حالة قدر كيو انت أنا برنامجك أقود جرين داوديال حلقة بدي أتكلم كفو عصوب تاي سبسكرايب صاروا جنبالك هالمامين سياد نقطة داودا وهريا حقها أنباهنو haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore noola joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga iyo daawashada xogaha aan baahino cabdi dhaanto waad imaqashaa baan filayaa ku soo dhawaaw Alpha Media Group saaxiibka qadarkii waxaad noo sheegtay in la xiray bal noo sheeg halka lagu xiray dalka Ethiopia in aan dadka u xaqiijiyo fanaanku inuu xiran yahay oo dadaalo badan aan maartay soo binay si aan wax badan arintaas aan ugu ogaado ani shakhsi ahaantayda marka waxaan ku weydiinayaa ma horay ayuu u joogay Addis Ababa mase markii uu airportka ka degay ayaa la qabtay fanaanku waayahan maalmihii isbuuc u dambeeyay wuxuu ku sugnaa magaalada Hargeysa shalay ayuu wuxuu u socdaalay dalka Ethiopia gaar ahaan caasimadda Addis Ababa fanaanka meesha laanta immigration-ka ayaa kulay ku dhagtay waxaad inoo sheegtay in ay ku dhagan tahay fanaanka laanta immigration-ku bal ma noo sheegi kartaa sababta sababaha runtii ay fanaanka u qabsadeen aanu hadda halkan kama xaqiijin karo marka xilliga la xiray fanaanka goorma ayay ahayd waxaan idin sheegayaa in fanaanka shalay toole lagu xiray airportka xalay toolena uu meesha ku xidhnaa marka xalay markuu meesha ku xidhnaa baaritaan iyo kulli waxbaa socday baaritaankii iyo kulli hawlihii socday kadibna maanta ayaa waxaa loo qaaday xabsiyada magaalada dhexdeeda ku yaala marka ma noo sheegi kartaa xabsiga uu ku xiran yahay hadda meesha xabsiga uu ku xiran yahay fanaanka kulli hadda idinma xaqiijin karo waxaan isku dayayaa inaan wax badan ka ogaado insha Allah ilaa caawa waqtiga dambe ilaa bari gelinka dambe waxaan idin soo xaqiijin doonaa meesha uu ku xiran yahay dad ehelkiisa oo xagga jooga oo waalidkii laftirkooda waan la hadlay qadka taleefanka ayaan kula hadlay iyagana waxay uga codsadeen inaan dadka bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago fanaanka inuu xiran yahay ay waxbana ka qaban waayeen marka insha Allah sidaas ula socda waan idin salaamay meel kasta oo adduunka ka joogtaan aad baan idin salaamayaa aad baad u mahadsan tahay saaxiibada Alpha Media Group mar walba daqiiqad walba iyo saacad walba wixii ku soo kordha ayaad nagala socod doontaan insha Allah haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub subscribe saaro gambaleelka hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya xogaha aan baahino haddii aad horay noola joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga iyo la socoshada barnaamijka